booqashadan waxaanu uga jeednay doraad markii arrimuhu ay dhaceen ee madaxweynaha ummadda Jabuuti uu hadlaayay ayaanu meesha taagnayn annaguna uma aanaan qaadanin in maanta la isku haysanayo dibitaati baan noqonayaa waxaa meesha nooga cadaatay dibitaatiga la dooranayaa inuu nin walba qoys noqonayo haddii uu og yahay in dibitaatiga la doortaa ummadoo dhan uu matalayo la iskuma dilan dhibaatadanna ma dhacdeen waxaan dadku aanay fahansanayn ninka baarlamanka taga xeer ayuu hadduu xitaa qabiil halkan kaga tegay xeerka kolkuu ilaaliyo ee uu taga baarlamanka ummadda Soomaaliyeed qabiilkii wuu ka gudbado xeerka xukumaaya wuxuuna u shaqaynayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan laakiin waxay u qaateen kolka halkan laga doorto inuu qoladiisa u shaqo tagayo waxaanu aad uga xanaaqnay iyadii ay gabagabadii taagan tahay iyadii oo cadow badan aanu leenahay iyadii oo dalkan aanu joognay dalkayaga ee Jabuuti ay aad u rafaadsan tahay iyadii oo nalaga sugaya inaanu xal keenno in yiraahdo aniga xubin bay iga maqan dadka ma isaga leh xubintu ku xisaabtamayo xubinta anagu ma aanu iman meeshan in la isxaqaqtana uma aanaan iman in nin qori wato oo meesha maarta iska soo dhigay yimaadana uma aanaan iman samatabax baanu u nimid qoomiyad baanu u nimid haybad baanu u nimid Soomaalina u nimid madaxweynaha iyaga qaaliga ma oran karo tolaawa ma oran karo tol buu leeyahay Ismaaciil Cumar Geelle waanu soo qoysanay ma oran karo wallahi inaanu muusanaabayn una liidanayn oo haddii xal la gaari waayo gacanta la isula tagayaa oo aanaan ka dhowrsanayn wallahi la sugiyo dadkiis dumay baan la sugi danyar baahano diif qabtaan la sugi dalaniyo dadkiis dumay baan dowladaan isleed shakhsiyaad ka baxa dowladaan shakhsiyaad Ismaaciil Doraad hiilku dalbaday miyaan siir damqada dareenku idin sin Ismaaciil Doraad hiilku dalbaday miyaan siir damqada dareenku idin sin dowladaan isleed shakhsiyaad ka baxa dowladaan isleed shakhsiyaad howladii dalkooda cadaana diyaar waxaanu nahay dawo iyo qis howladii dalkooda cadaana diyaar waxaanu nahay dawo iyo dowladaan isleed shakhsiyaad ka baxa dowladaan isleed shakhsiyaad danyar baaqano diif qabtaan la sugi dalaniyo dadkiis dumay baan la sugi danyar baaqano diif qabtaan la sugi dalaniyo dadkiis dumay baan la sugi dowladaan isleed shakhsiyaad ka baxa dowladaan isleed shakhsiyaad qof kasta ama qabiil kasta ama qoys kasta oo xaq inuu ka maqan yahay tuhmaya ama tirsanaya inuu ku iloobo qarannimada Soomaaliyeed dhismaheeda inuu ku iloobo wax uu ku cafiyo taas horta waan codsanayaa waxa weeye meesha waxaan u nimid in qarankii Soomaaliyeed la taago oo la joojiyo haddii la xisaabtamo waxa niman cadkiisa ka tagin cimrigiisa ma dhamaysto Soomaalida ku mahmaahda waxa weeye cad kasta oo ka maqan waa inaad ku ilowdaa marxaladda maanta la joogay waxa laga fikirayo annaga dhan baan jirin ninku marka uu jiroodo oo qof jirta yahay ayuu wuxuu ku xisaabtamaa waxa ka maqan iyo wuxuu xaq u leeyahay ayuu ku xisaabtamaa maba jirno sidaan u jiri lahayn ayaa la dhisayaa haddaad tuhuntay qaybad leedahay inay ka maqan tahay waxaad ku ilowdaa calankii Soomaaliyeed adduunka baan ku ilow miyaan laga baqayn miyaydan umadahayn miyaan aqliyada fakara ilaahay idin basiin maxaa ereyada guracan idaacada loogu shubay maxay odayaasha iyo indhaargala uga hadleen maxaa ereyada guracan idaacada loogu shubay maxay odayaasha iyo indhaargalad uga hadleen miyaan laga baqayn miyaydan umadahayn miyaan aqliyada fakara ilaahay idin basiin miyaan laga baqayn miyaydan umadahayn miyaan aqliyada fakara ilaahay idin basiin annagu waxaanu leenahay annagoo maanta ugu waaweyn aniga baxsan hobalada halkaan iskugu nimid diyaar waxaanu nahay inaan hiil iyo hooba aan garab istaagno jamhuuriyadda Jabuuti iyo madaxdeeda iyo ciddii nabad nala rabtaba annagu nabad baan rabnaa waxaan ka soo horjeednaa dadka kaliya tasheedaasha ah
oo ku hadlaya hadallada qadafka ah annagoo har iyo hameenba heegun ah inaan dhisno dawlad Soomaaliyeed waxaanu leenahay waxaanu lahay hoobaladii dalka oo diyaar ah oo u diyaara nabadeynta dalka Soomaaliyeed waxa weeye waxay Soomaalidu tiraahdaa subag weel ku daatay sina uma xumaado subag weel ku daatay sina uma xumaado haddii kani qaata kursiga isagu u qaaday haddii kani ka tago isagu uga tagay war kursigan maad iska ilowdaan waa mid kaliye Soomaalida ku qanci weyday kursiganaan caashaqayay ku qanci weyday ayaa wanaag aanu ka sugaynaa ilaahay wanaag ha ku soo rogo ilaahow rabbigayo wax alla waxaan ku hadlaa anigu garan maayeen na bal mar way adigu hadal bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waxaan ku hadlayaa anigoo magaca fanaaniinta Soomaaliyeed meel kasta joogto ku hadlaya waxaan codsanayaa oo ummadda shirweynaha Soomaaliyeed u timid ee suldaanada leh ee duubabka leh ugaasyada leh ee imaamada leh ee malaakhiyada leh dhammaan maaragtay saladanada Soomaaliyeed marka la isu geeyo duubabka Soomaaliyeed iyo maaragtay haweenka culimaadiinka aqoon-yahanka dhan kasta oo Soomaaliya waxaan ka codsanayaa walaalayaal 10 sano dal burburay oo baaba'ay oo maanta dayacan oo maxayday adduunyada maaragtay ka takooran ayaan nahay walaalayaal oo is-adeegashada intaad iska ilowdaan walaalo qaran noo dhisa waan idin baryaynaa qaran noo dhisa danta gaarka iska meel dhigay qaran noo dhisa yaan alla laga baqayn miyaydan umadahayn miyaan aqliyada fakara ilaahay idin basiin miyaan alla laga baqayn miyaydan umadahayn miyaan aqliyada fakara ilaahay idin basiin maxaa ereyada guracan idaacada loogu shubay maxay odayaasha iyo indheergarad uga hadleen